يا كلام نقبع جكرة رئيس الوزراء ويجي هذا الشقة ذي دان يستع وأنا قبع جكرتا هدي أنت سلوايو فرماجي سوري مينو سببته أو حوربا إنه حوق نقول حكومه حوقنا نمرة طلنا هاي أو قرية هيستان نقول حكومي وايي أو مقالة حمر جوجا وحنو ملاينا يا محمد عبد الله فرماجو نك حيل كيسة دماغي أنا قامي كوحد كواقانو وحالنا هاي فرصة دمان هيستو وكي ودن بيسي دت كانوا مرضى بشر اسكو إماما يعني سيكا قول هاي اسكو إمانا وما سنتي والسلام عليكم واي هاي وحاسو قارني قبل وحاد رسول ويسان مدحوني هو دولتكم بالقار كهيت مولانا الشريف شيخ أحمد شيخ محمود شيخ موسى عيق اللي سوده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو وناكسن أفركي النصر وإن شاء الله على الضلقات مدحويني هوري رئيساري هوري حلبان هذا مرشحين تا قولها وزير هذا سلاطين تدغنك علماء الدين قبلها دلنير هذا بعد الصحافة شراكيش عيدا مدى دمان وهذه كذا ما هاد علينا وقتي نقالجا وعدكم بحسين كلن كان ور لي راعا ومهرن وحلقة هلا يوح مدرر وكبضان هالسنة لقى سوى هلا أو دل كان دور شحرة أو حلالة إنك كدعض تاس كليها وحي موجنا دت كانوا إنه يوبس لالين دولة نمو إنه يكسوا دالين شرع درو مسؤولية داس waxay ahayd dawladdu inay garato inay ka sugto shacabka ma ahayn waxay muujinayaan marka dawladdu inay ka gaabiso waajibkeedii xilkii loo doortay madaxweynaha maanta jooga ee xilkiisu dhamaaday isagoo caadi ah oo shacaba ayuu subaxyada kamida hotelkan ka dareeray wuxuu tagay teendhada doorasho galay madaxweyne xasan sheekh oo madaxweynaha ayaa ka soo noqday asoo madaxweyne ahayn xilkaasaas loogu wareejiyay dawladnimadu marka hadii wanaag jiro waa basiid laakiin hadii la xumeeyo waa xunta wax walba idaa ka xun waxa ugu xun dadka in lagu dulmiyo wixii ay kugu dhiibteen ay kugu amaaneysteen ilaahay subxaanahu wa tacaala وحوليها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلهي سبحانه وتعالى أمانة أما مسؤولية وحوبنك سماواتك يدولك واديدين يا قاضي متغاني بني آدم كقاضي لماذا أقاضي وظلم بدن يهي وانا جاهل مسؤولية قفك مركا لو ديبا xilligan jooga xilligiisa hal maalin inuu ku darsado ma aha maxaa yeelay maalinta xilku ka dhamaado bani aadamku waa gaf badan yahay halkii gafood gasho boqol gafood la midi awood aan lagu siin oo sharcigu ku saamixin ayaa wax ku xukumaysa qofaa dhintay qofaa dhaawacmay dadaa dhibtooday dadaa walwalay waxaa soo dhan mas'uuliyadiisa waxa qaadanaya qofka xilkiisu dhamaaday ee wali soo taagan dadku sidaan inay inta u yimaadaan codkooda u muujiyaan waa arrin xadaari ah waa arrin muujinaysa dad u bisil dawladnimo waxaan rabaa inaan uga gudbo suuragal ma tahay hay'ad waqtigeedii dhamaaday oo la sugaaya inay doorasho aado inay cid kale sharciyad siiso ayadana sharciyad siiso suuragal ma arrintaas horena uma dhicin haddana wax la aqbali kara ma dadka xilka aan ka dhiman oo iska haysta waxa waaye boqorradoo kale waay laakiin dadka la doorto annagoo kala waqti aan loo qabtaa
4 sano 2 sano 3 sano wixii lagu heshiiyey hadday kaa dhammaato dadkii aa u noqonaysa marka waxaa la rabaa inaan la isdaalin doorashada sidii lagu aadi jira waa la yaqaanaa sidii hore ay ahaa jirta hadda waa ka fududdaha waa la soo koobay maamul goboleedyaa joogaan dowladdii waa wada fadhiisteen heshiisay gaareen waxaa la rabaa heshiiska in laga miro dhaliyo waxa kaloo dhan waxay tarayaan lama arko dalkan waa jilcan yahay waa dal u baahan in mas-uuliyad dheeraada la iska saaro laga ilaaliyo wax kasta oo keeni kara deganaansho la'aan waxaan u malaynaa dadka Soomaaliyeed in ku filan inay waqti siiyaan dawladda cod dheer iyo cod gaaban kula hadleen war maanta haray ma jiro warka haray waxa waaye jawaab degdega oo la bixiyo oo la tago teendhadii doorashada laga heshiiyo doorashana la aado cidda doorashada diidana waa wada ogna bogashii fidsanayd ciddii ka soo tagtay tii fidsanayd halkan ka fidsanayd laabtay ciddaas aadda iskale mas-uuliyaddu laba ma aha hal qofaa iskale waa wada joognaa waa wada naqaanaa madaxweyne xasan sheekh waa fadhiyaa madaxweynuhu haddausan go'aansan dalka doorasho inay ka dhacdo cid doorasho ka qaban kartaa ma jirto waa soo marna annaka waa naqaanaa qof haddii la qancaayo asaa la rabaa inuu qanciyo haddii la tanaasulayo asaa la rabaa inuu tanaasulo dad kale in la eedo wax ka imaana lama arko international community waa mahadsan yihiin dalkan waqti badan ay geliyeen mowqifkoodana waa caddeeyeen annagaa muwaadiniina inta ay leeyihiin doorasho ha la qabto intaas keliya maan dhihi weyna annaga intaas iyo ka badanba waa nagala rabaa maxaa yeelay inaan dulsaar ku ahaano 30 sano international community waxaan hagaaji karna annaka darteeda annagay dhaawac nagu tahay waxayna muujinaysaa inaanan u bislayn dowladnimo taasay muujinaysaa qofka lagu aamino madaxweynenimo wax lagu aamini lahaay oo u dhiman miyaa jira waxaa la rabaa dadka dhan inuu ka horeeyo oo ka aragti dheer yahay ka xishood badan yahay ka diyaarsan yahay dadka u turaa la rabaa dalkan 4 sano la soo dhaafay waxba isaga sheegi mayno siday rabtaa ahaato hadda waxaan rabnaa doorasho in la aado madaxweyne goboleedyada waxaan ugu yeeraynaa si degdega inay ugu laabtaan teendhooyinka doorashana loo aado intaas haday dhici weyso wax alla wixii dalkan ka dhaca mas-uuliyadda ayagaa qaadaya bidaat waxaa qaadaya madaxweynaha waa ogtihiin murashaxiinta intaas waxay ka shaqaynayeen in wanaag wax u dhacaan oo doorasho la isla ogol yahay ay dhacdo qabiilkan waa la wada yahay laakiin waxa laga hadlayo wanaagga iyo dowladnimada waa dadka meeshan yimiday مثل waxay ka yihiin dadka deegaankan ku badan oo hawiye la yiraahdo sharaf iyo karaama leedihiin inaa u timaadeen dalkaanu inuu dimuqraadi ahaado diktaatooriya laga ilaaliyo dal lagu wada nool yahay la isku jecel yahay oo noqdo dowladnimada la ilaaliyo dadka hawiye dadkaana midla waxayna ku midlaan wanaaga hawiye qof walba laakiin dadka midlaaya dadkan waay waxayna ku midlaayaan in Soomaaliya wada jirto oo wixii shalay lagu heshiiyay ay mira dhalaan dowladnimada ay shaqayso wax badan oo xille oo la isku jiida waa soo dhaceen dadkaanu diyaar uma aha waxay rabaan dariiqi wanaagsanaay oo dowladnimada oo sharaf ka lahay oo walaalnimada lahay in la aado marka waxaan rajaynaynaa dowladdu intaas inay la fahamto la garato go'aanada sharci darrada ah la qaatana laga laabto doorashana la aado aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaa inoo haray warmurtiyeedka ayaa inoo haray waxaanu akhrinahay xildhibaan mahad salaad soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقتك عقابا قف ولبا مقعيس أي مصب كيسيان كسلامي أمانتين وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب رمضيات كان توسو هذه دونا ما داب اللي وحل عفرة ووقته ودعيه شركة أي كتشجع دلوين تهويه ورمضيات شروينا أي كخيب قلان قضياش رقنك xubno ka tirsan midowga murashaxiinta xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka
xildhibaano ka tirsan baarlamaanada galmudug iyo hirshabeelle aqoon-yahano haween iyo dhallinyaro ka soo jeeda beesha hawiye ayaa looga hadlay xaaladda ka taagan dalka iyo xilligan kala guurka. shirweynuhu wuxuu isku raacay qodobada soo socda: kow, inay sharci darro tahay muddo kororsiga xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka muddo xileedkiisu dhammaaday ay u kordhiyeen madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhammaaday, iyaguna isku kordhiyeen muddo 2 sano ah. sidaas daraaddeed shirweynuhu uma aqoonsana maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne Soomaaliyeed. 2, in si degdeg ah looga laabto go'aanka muddo kororsiga sharci darrada ah. shirweynuhuna wuxuu ku adkaynayaa inuu waddo kasto lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin. 3, in badbaadada dalka ay ku jirto qabashada doorasho heshiis lagu yahay, taasoo saldhig ugu yahay heshiiskii 17 Sebtembar. waxaan ku baaqaynaa in shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale siyaasadeed ee dalka, iyadoo aan loo xayirmin madaxweynihii hore maadaama uu cadaystay in uusan rabin doorasho, taa beddelkeedana uu door biday muddo kororsi sharci darro ah. 4, shirweynuhu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada, wuxuuna caddaynayaa in mas'uuliyadda ay qaadayaan madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday iyo guddoonka golaha shacabka. 5, waxaan mar kale ugu baaqaynaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed, iyadoo si gaar ah loogu digayo taliyaha ciidanka lugta, taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska oo si gaar ah ugu howlan fulinta ajandaha muddo kordhinta. 6, shirweynuhu wuxuu cabbaaraynayaa mowqifka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo. shirweynuhu wuxuu caddaynayaa inaysan shacabka Soomaaliyeed ku matelin go'aankaas, waxaana laga dalbanayaa inay si degdeg ah uga laabtaan go'aankan horseedi kara xasillooni darro ku timaada guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada beeshu degto. haddii kale waxaa loo aqoonsanayaa inay mas'uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu. 7, shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, aqalka sare ee baarlamaanka federaalka, midowda murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ah ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ah ee dalkeena ka hana qaadaysa. 8, shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta AMISOM inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhammaaday, kaasoo ku howlan hurinto, fidno iyo abaabul colaadeed. 9, shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada ah, meelna uga soo wada jeestaan difaaca hidda siyaasadeedka soo jireenka ah ee xukunka sida nabadda ah la iskugu wareejinayo 4 sanaba mar, taasoo udubdhexaad u ah dhismaha nabadda iyo dowlad dhiska dimuqraadiga ee dalka ka hana qaada. 10, shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka dadaalada joogtada ah ay ku garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. aad iyo aad u mahadsantahay.